munaasabadan oo shahaadooyin abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo fasalada sideedaad ee iskuulka hoose dhexe sare ee Sheekh Zaid ee ku yaala deegaanka Qalimo ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo laga hirgeliyay deegaanka kaasi oo si lacag la'aan ah wax lagu baro ardayda ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka waxa ka soo qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin ardayda wax ka barata iskuulka aqoon-yahano macallimiin iyo marti sharaf kale qaar kamid ah waalidiinta ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada ay u leedahay bulshada rafaadka la soo maray aan ognahay dadkii u istaagay ee istaajiyay ee dhaqaajiyay ee duruufyada la soo maray heerkan soo gaarsiiyay dardaaran yar raba markii aan u soo jeeday ardada waxaan kula dardaarmayaa horta waqtigooda inay ka faa'iideystaan waa koow labadooda waalid inay baari u noqdaan maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Sheekh Zaid deegaanka Qalimo gobolka Shabeellaha Dhexe macallin Saalax Cali Musbaax ayaa ugu hambaliyay ardayda horumarada dhinaca waxbarashada ee deegaanka marka labaad waxaan ugu mahad celinaynaa walaalaha muxsiniinta ah ee isku howlay inay ka qayb qaataan wanaagga deegaankooda iyo dalkooda gudoomiyaha jaamacadda aadan cadde professor Cabdulqaadir Axmed Mahad oo ka qayb galay munaasabada ayaa ku goobaabiyay ardaydu inay sii wataan waxbarashadooda calinimo laga siin doono oo ka shaqeysanayo soo gurigiisa joogo si inta kale ay ugu dhiirigashanto Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.